waxaan rabaa inaan aniguna adkeeyo bangiyada doorka ay ku leeyihiin ganacsiga iyo kobcinta dhaqaalaha. Bangigu waxa weeye waa meeshii magaciisa sida ka muuqanaysa xoolaha la dhigayay, laga qaadayay, haddana lagu soo celinayay. Marka intii hadda la sheegay oo dhan ayuu ka qayb qaataa. Maalgashi ma dhici karo haddii uusan bangi jirin. Ganacsina dee lama samayn karo haddaysan bangiye jirin. Marka aad iyo aad bay bangiyadu muhiim inoogu yihiin arrintaas. Waxaa kale oo runtii wax looga mahadceliyaa bangiyadeena si gaar loo xusaa, iyaguna way sheegeen. Waxa weeye waxyaabaha ay soo kordhiyeen ee ay adduunyada aan kula socono ama in badanba kaga horeyn, oo isticmaalka teknolojiyadan oo EVC-ga ugu horeeyay oo ay kamid tahay e-dahabshiil oo hadda kuwii la sheegay oo Mastercard iyo Visa card ay kamid yihiin. Dhammaan kuwaasi oo hadda waddankeena si sax looga isticmaalo, meelo badan oo laga isticmaalin oo ayna ka jirin jira. Marka horumarkaas waxaa keenay bangiyadeena keenay oo ku mahadsan yihiin. Waxaa dee in la xusan mudan inay shaqaaleysiiyaan boqolaal Soomaaliyeed dhalinyaro ah oo aysan dee dowladda awood u lahayn inay shaqaaleysiiso oo sektorkaas ka shaqeeya oo wax loogu mahadceliya ayagana aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin. Waxaanu dhiirigelinaynaa in lasii horumariyo bangiyada. Dhinaca ayagana waxaa xil laga saaran yahay ilaalintooda iyo taabagelintooda, iyo sida uu ka hadlay guddoomiyuhu in mar walba waxyaabaha ka dhiman in ay dowladuna xoog saarto sidii ay ugu siyaadin lahayd. Marka dowladdu idinkay idiin shaqeyn doontaa insha Allah. Mar walba waxay ka shaqeynaysaa waxa aad qabsateen siday usii horumarin lahayd oo wax ugu sii dari lahayd. Xukuumadda waxay u taagan tahay ilaalintiina, hantideena ilaalinteeda, waa inaan ilaashano. Si loo ilaaliyo waa in xayndaabyada lagu ilaaliyo, waa in ay xukuumaddu ay si fiican uga warhaysaa. Meel kasta oo la isugu soo disayo, meel kasta oo warxumo tashiilku wax ka hadlaynayo, meel kasta oo wax laga hadlaynayo, waxaan u baahannahay in aan ka hortagno. Waxyaabaha ugu daran ee dee caalamka hadda waa ogtihiin waxa weeye faraha meel walba lagu taago, cid walba lagu taago, oo ay waxyaabaha money laundering-ka iyo lacag dhaqidda iyo lacagaha laga yaabo inay u gudbaan dad aan habbooneyn oo dambiilayaal ah. Waxyaabaha noocaasa waxaan u baahannahay in aan mar walba inagoo wada jirna inaan ka ilaashino hantideenna iyo bangiyadeenna, inaan ka ilaashino sumcadda hay-adaheena maaliyadda oo ay bangiyadu ugu horeeyaan. Bangiyadu waxaan u baahannahay inaan wada difaacno. Waxaan ku difaaci karnaana waxa weeye sida ay adduunyadu u difaacanayso si lamida inaan u difaacno ayaan u baahannahay. Waxaan ku difaacanaynaa waa inaan ku difaacno shuruuc, waa inaan ku difaacno. Marka shuruucdaas aan ku difaacanayno waan ka fiirsanaynaa. waa inay ilaalinta ujeedkeedu waxa weeye waa ilaalinta hantida iyo sumcadda iyo ganacsiga iyo dhaqaalaha dalkeena iyo dadka. Wax kaloo ujeedo laga leeyahay ma jirto. Ujeedada aan ka leenahay waa intaa. maadaama ay ujeedadu marka ay caddahay
waa inaan haddana ogaano oo laga maarmaan tahay inagu dawlad baan nahay waxaa jira wax waajibaad dawliya jira oo international obligationska ayagana waan dhowraynaa marka standardkaas baan raacaynaa standardkaasaan ku difaacaynaa marna micnaheedu ma aha in hantideena yartaa ee noo soo koraysa aan wax u dhimayno macnaheedu ma aha sidaan hore u ballan qaadnay waxay stakeholdersku xaq u leeyihiin inay qaybo ka noqdaan tala ku yeeshaan ra'yigooda la arko markii la sameynayo shuruucda noocaas oo kale ah oo lala soo tashado grassrootka hoose lagula soo tashado ay wasaaradu la soo tashadaan marka ganacsataduna waxaan rajeynaynaa ayaga oo aan il shaki qabta aan wax ku fiirinaynin oo taas aan sheegay hadafku uu yahay inay qayb ka noqdaan ayaguna la tashiyadaas iyo outreachka la sameynayo inay qayb weyn ka qaataan saad ogtihiin muddadii 6 bilood hadda xukuumaddan jirtay sharciyo badan oo aad u badan ayaa la mariyay 7 ka mid ah waxay nagu ahaayeen inaan marino waan ku qasbannahay annagoo ka eegayna danta guud ee ummadda Soomaaliyeed maadaama ay ku xiran yihiin deyn cafis marka waa dhici kartaa in waxyaabaha qaarkood ay degdeg ay ku timaado way dhici kartaa sababtoo annagaba waxaan joojinay shuruucdii kale oo diyaarsanayd oo dhan waan joojinay waxaan dhahnay markay wasaaradihii especially ka shaqeynaya waxaan ku niri markay kuwan aad soo dhamaysaan ayaan kuwa kale aad u fasaxantiin laakiin qof ama wasaarad ay sugayso xeer la xiriira deyn cafiska yayna soo gudbin xeer kale dib ha u dhigto horta kuwaas dambe marka waxoogaa rash baa jiray oo arrintaas ku saabsan waxaana saas u sameynayno maslaxadda ummadda Soomaaliyeed iyo in aan ka faa'iideysano overkaas adduunyadu ayna siinayso ah deymihii iyo ribadii idin dul saarayd iyo musiibadii baa idinka cafinayaa awlaadeenna iyo ilmaheeda iyo ilmahooda dambe iyo dhibaatada haysata inaan ka fududeyno ayaa ujeedadeedu tahay waana midii aan u dhaaranay inaan maslaxada dalka iyo dadkan inaan ka shaqeynayno marka haddii ay jirto la tashi la-aan ama in aan sidii la rabay aan la isugu soo bandhigin waxyaabahaasa laga yaabaa inay ay keeneen waxaa kaloo la sii xadidaya ad ogtihiin dee baarlamaan baa ayaa jooga oo 2 aqala weliba oo u baahan in la marsiiyo marka waad gadan kartaa marka muddadaas yartaa degdega la iska rabo in ay wasaaradda soo samayso in golihii wasiirada la mariyo oo weliba procedure dheer lasoo maro oo aan wasiirka cadaaladda u dirno marka hore iyo wasaaradda kadibna gariiqaan guud u dirno balse u soo eego kadibna golihii xukuumadda loo keeno dood looga galo marka la mariyana in loo diro golaha shacabka kadibna muddo kadib iyo akhrisyo badan kadib iyo doodo dhaadheer kadibna haddana mar kale check and balance marka waxay la tahay intaasoo Soomaali ah oo sii daba gashayna waxay sii jeegareeyeen wakiil way ka noqon karaan cabsi ma jirto marka dagaal baan ku jirnaa marka qaarkood haddii sidaan horeyna aad ogtihiin oo aan 3 dhinac kaga jirno 3 jiho oo midka laga reebo militariga ah midka labaadna uu yahay dhinaca fikirka iyo caqiidada midka saddexaadna uu yahay dhinaca financiga marka iyo maalgelinta 3daas oo arrimooda aad u waaweyn ayaan u aragnay inay laga maarmaan tahay dadkaas cadowga in lagula dagaalamo marka maadaama jabhad weyn oo
meelaha lagaga dagaalamaya ay tahay financiga dee markii xagga diinta lagala dagaalamayo culimadii waa isla qaadan waa isla jaan qaadnay oo waa la socota oo dhinaca fikirka meel fiican ka maraya dhinaca militariga ayada shacabka Soomaaliyeed isla jaan qaadno ayakana waa kuwa ilaa iyo xardheer si caysanaya si buranaya markii dhinaca financiga waxaan rabnaa isla jaan qaad marka waa dagaal aynu kulligan ku jirno shacabkeena Soomaaliyeed ku jiro oo saddexdaas jabhadood uu kaga jiro haddii marka ay mararka qaarkood ay dawladdu soo saarto waraaqo haday soo saarto talooyin ama digniino haday soo saarto meesha wax u socdaani waana isla wada garanayno uma socdaan warkaas kuma socdo bangiyadeena kuma socdo hantideena kuma socdo nidaamkeena guud ee financiga systemka kuma socdo waxa uu socdo waa cadowgaas waxayna taladeedu tahay macnuhu waxa weeye inooga ilaaliya iyo in hantideena inaga nijaasayn intaas macnaha fariintu waa intaas conclusion waxa weeye waan soo jaan qaadaynaa wixii naga socdana ama canaanta naga soo baxay idinkama socotee hadda wasaawaga taa inta labaad waxa weeye wadankeenu deyn cafis ayaan rajaynaynaa insha Allah sanadkan wixii deyn cafis ka dambeeyana de waxaa imanaya in wadankan la maalgasho marka waxaan u baahannahay in loo diyaar garoobo maalgashigaas annaga ka xukuumad ahaan iyo private-keena oo bangiyadani ay ka yihiin waxaan u baahannahay inaan isla meel dhigno xaggaynu u dhaqaaqi doonaa dhinacaynu aadi doonaa ma dhaqaalaheenu xaggee u aadaya xaggeen investmentiga ku sameynaa ma infrastructure-kaan aadnaa ma wax soo saarkaan aadnaa xaggee inoo ah priority inoo ah waxaad ogtihiin waddankeena hadda climate change dhibaato fara badan baa jirta abaaraha jira webiyadeeni imika wayba iska sii tabar daran yihiin marka dad badan imika waxay leedahay Soomaaliya waxay u socotaa inay noqoto maritime state marka badda oo aynan awalba aqoon ayay u badan tahay inaynu xataa biyaha ka cabi doono marka alternative-ka jira waa sidaas maadaama webiyadii halis ku jiraan marka laba arrimoodba waa muhiim inaan ka fakarno biyaha dhulka hoostiisa ku jira oo aynan kuwan webiyaasha keliya aynaan ka fakarin iyo inaan badda usii jeedsano oo aan nolosheeni baddaas weyn aan ka faa'iidaysano hadday noqoto biyo iyo haddii ay noqoto nolosha inteedii kalaba waxaan rajaynayaa marka inaynu ka fakarno inaynu infrastructure kolley midka ila fiican inaynu ka fakarno inaynu infrastructure-ka xoog saarno dekada samaysano waaweyn saan hore u sheegay adduunyadii waxaan ka xigsanay badda innagaa ka xigsanay intaas adduunkana waa iskaga gudubnay dadka marka waa inaynu u adeegna dadka si aan ugu adeegnana waa inaan jidadna dhisna dekadana dhisana laakiin haddii aan baddiina kaga gudbanaano waxbana aynaan u samaynin dee waa laynoogu imanayaa meesha ad iga gudban tahay wixii oo dhan risqigin adaa ku gudban imana adeegaysid waxba ima taraysid marka waa su-aal adag marka waxaynu u baahannahay inay ganacsatadanu iyo bangiyadana ugu horreeyaan ka fakerno waxaynu u baahannahay
infrastructure oo dekedahaas ku jiraan, airport ku jiraan, jidad ku jiraan, inaynu aada uga fakerno in dhaqaalaheena malaha meesha ugu habboon ay ka bilowdato inay meelahaas ahaan lahayd. marka fikirkiina wax badan waxaad gelisaan maxaa ka dambeyn doona markii dayn cafisku ay dhammaato, maxaa ka dambeyn doona, taasna inaad xoog saartaan ayaan rajaynaya insha allah ka fikirtaan. si guud waxaan idinku hambalyanayaa mar kale shirkan. waxaan soo dhaweynayaa doodaha cilmiga iyo baybriska. waxaan rajaynayaa inaan insha allah guuleysano. waxaan rajaynayaa Soomaaliya ilaahay idinkiis inay ka gudubtay marxaladii adkaa, waxyar baa dhiman, waana inta nimankaas shahaadiinta ay waddanka ku jiraan. wixii ka dambeeya ilaahay idinkiis waddankeennii oo daynta laga cafiyey, innaga oo nabad helay, iyo dadkeennii oo barwaaqoobay oo dhammaantood insha allah shaqo wada helay, iyo dhallinyaradeenna khayr baa idin rajaynaya. wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu.